Assalaamu calaykum. Dhulka waa meesha keliya oo ay nolol ka jirta kownkan. Haddaba maxaa dhulka ka dhigaya mid qaas ah? Si aan u helno xog badan, mawduuceena maanta waxaan kaga hadli doonaa dhulka. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. dhulka waa meeraha saddexaad ee u dhow qoraxda, waana meeraha keliya ee lagu noolaan karo. taariikhyahanadu waxa ay sheegaan ama qiyaaseen in dhulka la sameeyey 4.5 bilyan oo sano ka hor. masaafada dhulka uu u jiro qoraxda waa ku dhowaad 150 milyan oo kiiloomitir, halka dayaxu dhulka uu u jiro ku dhowaad 384,400 kiiloomitir. Is-afjiidadka dhulka ayaa ka caawiya inuu la falgalo qoraxda iyo weliba dayaxa. dhulka ayaa ku wareegsada qoraxda 365 maalmood, taas oo aynu ku xisaabsanno sanadka. xilligaas inta lagu guda jiro, dhulka ayaa isna isku wareegsada 366 mar. dhulka oo isku wareegsada ayaa dhalisa in aynu helno 4 xilli sida gu, jiilaal, dayr iyo weliba xagaa. is-afjiidadka u dhaxeeya qoraxda, dayaxa iyo dhulka ayaa sababa in baduhu hirar badan ka kacaan. dhulka oo aan ka dhaqaaqin meesha uu joogo, iyo in dhulka tartiib ugu wareegsado qoraxda. 71% oogada dhulka waxaa ku hareeraysan biyo, inta badan waa bado. 29 kale ee soo hartay waxaa ka mid ah dhul, qaarado, jasiirado, webiyo, haro iyo weliba ilo kale ee biyo ah, kuwaas oo ka qayb qaata hydrosphere. inta badan gobollada ku yaala cirafyada adduunka waxaa hareeyay baraf, waxaana ka mid ah Antarctic ice sheet iyo weliba Arctic iceberg. waa bad gebi ahaanba baraf ah. adduunyadu waxaa ku nool noolayaal badan oo noocyo badan leh. inta badan lama ogan ama lama baran noocyadaas. in ka badan 7.6 bilyan oo qof ayaa ku nool dhulka, kuwaas oo ku tiirsan nidaam deegaaneedka ecosystem iyo weliba khayraadka uu Ilaahay ku manaystay dhulka. bani aadamka ayaa horumar ka sameeyey kala duwanaanshaha bulsho, siyaasad iyo weliba dhaqanka, iyada oo hadda ay dunida ka jiraan in ka badan 200 oo waddan. dhulka waa meeraha shanaad ee ugu weyn meerayaasha, waxaana ka weyn meerayaasha gaaska sida Jupiter, Neptune, Uranus iyo Saturn. sidoo kale isna waxa uu ka weyn yahay meerayaasha ka samaysan dhagaxa sida Mars, Mercury iyo weliba Venus. haddii aad ku cusub tahay, waxaad riixdaa bottomka gaduudan ee subscribe si aad u hesho mawduucyo noocan oo kale ah.